السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا مركورة من البودي قد داونيسان يصير البودي مغلسان. إحنا مركورة دونا يا إن كتعسي ديو مصيبة أمة الصومالية تكون عظيم مالنتي الشراحيت قرحي كذا عايز زوبة حلها أنت دمتي الله ونحرسته أنت داو عنا إلى سبحانه وتعالى أبو قريو هاي مالين بدو ومركله صومرتي تاريخ ده هي أمة الصومالية waxaan saruntii aan marnaba aan la iloobi dooninin markii qaraxaasi uu dhacayay madaxda ugu sareysa dawladeena iyo dalka oo dhanba inay markaasi ku jireen meel hool ah oo lagu mahadsanayay al-shabaabnimadii iyo xagjirnimadii dhibaatooyinka hadda ina haysta iyo midii shila dhacdiba ay mataqaana keentay oo ay soo mareen Rabo Mansuur iyo Axmed Madoobe waxay ahayd arrin aad moodid inay habi ku wada ahaayeen cid walba oo meesha fadhiday xaruntii aan la yaabay waxa lagu qoslayo iyo sida maanta loogu dhiiranayo in la sheegto in madax al-shabaab laga aha iyo in Madoobe uu ugu yeero maxaa la yiraahdaa madaxdeedii hore sheeqaygii baan ku faraxsanahay inuu ka kalena sidoo kale ugu yeero in laga sheekeeyo oo taariikh fiican ay noqoto in laga sheekeeyo al-shabaabnimadii iyo qaabkii ummadda loo xasuuqay waxaan sidoo kale aan la iloobi doonin ama aan la iloobi karinba sida ay ummadda dadka amnigooda loo dhiibtay ay u qoslayeen sida nimankii xijaar lahaa waxaan kale oo aan loobi doonin si raggi kale meesha sida qorqoriya ayaguna ay u qoslayeen oo ay faniga ugu dareemayeen in waxa laga sheekeeyo looguna dhiiraday in ummadda la soo hordhigo dawladda horteedana waxa laga sheego dawladdana ay waxa qayb ka yihiin nimanka noocaaya ee runtii waa musiibo ummad sidaa samaynaysana ma maleynayo inay xaq u leedahay inay amni iyo dawladnimo ay helaan waxaan dhacaya oo waxa anagu aan isku sameeynay wax irka nooga yimaade ma wax uquba la galabsaday ayaa maalinba mid kamid ah aynu dul taagana waxa kale oo runtii mucjiso ahaa qarxan inta uu sadicin ka hor waxa la soo sheegayaa in xogtaan la hayay 4 maalmood oo la soo dhaafay xerada xalane nimanka ku jira iyo dawladda hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka kale ajaanibta ee dalka naga jooga inta way hayeen baa la yiri xaaladdaasi marqaati u ah waxa la yiri diyaaradihii dalka imaan lahaa internationalka ahaa iyo kuwii localka ahaaba maalintii shalay ahayd garoonkaasi oo dhan cidna maysan imaan bari diyaaradaha oo dhanna way ka baaqseen in la imaado Aadan Cadde International Airport maadaama la sheegay in qarxi dhacaya haddii arrintaasi ay jirtay oo sida loo sheegay maxay dawladdu ula wadaagayday shacabka maxaa loo oran waayay lama dhaqdhaqaaqi karo magaalada qarxiya ku jira maxaa allaat loogu sheegi waayo ummadda maxaa loo dhigi waayaan la soconin maxaa amniga shaqo badan looga qaban waayo maxaa loo seexda daqal isku soo xiray in la iska checking garayo la iska qosqoslo waa maxay masuuliyadda halka ka imanaysa waxa kale la yaab lahaa goobta uu qaraxu ka dhacay waa goob ay ummaddu wada garanayso 4 wado oo magaalada haadka u ah ayaa isku kala gooyay ayaa la yiri mid walba oo kamid ah checkpoint iyo askar baa fadhida xagee qaraxu soo mara ma garanayo kulli cid garan kartana ma inay jirto qarxi koobaad waxay ugu sheegayaan uusan qasaaro baan geysan laakiin qarxi labaad markay ummaddu isku soo shamuumeen oo lagu soo kala yaacay ayaa qarxi labaad ugu qarxiyay qarxi damba ayaa ka culusa kii hore kana qasaaro badnaa dadka halka ku dhintay maanta cid isweydiinaysa tiradooda ma lahan waa tirabeel dhaawacu ilaa guriyihii baa la geeyay isbitaaladii baa buuxsamay waxa kale oo runtii wax laga naxa ah oo laga xishoodo in isbitaaladii ku yaalay magaalada oo dhan ay inta meyd ka aruursadaan isla markaasna ay geliyaan qolol markaas qof walba oo ehela oo yimaada oo qofkii sii waaya hadii meydkiisa uu meesha ku jira markaas lacag la charge garanayo in isbitaaladii ay meydka u soo aruursanayaan in lacag ka sameeyaan ka bacdin qofkii leeyahay lacag bixi hadii kale meydkaaga ma qaadanaysid in dad masaakiin ah hadda la sheegay inay meedkooda ay ku qaataan la yihiin cid ka bixinaysan ay jirinin meelana ay ku xareysan yihiin isbitaalada ay ku haystaan isbitaaladu marka ummadda ay gargaarayaan soo ummadda isbaaraysanayaan meydkaas iyo meeshaas ay dhimashada iyo musiibadu ka dhacday baa dhaqaale laga dul raadinaya isbitaaladii baa ka raadinaya dadkii caadiga ah baa ka raadinaya waa dad damiirkooda dhintay oo aan damqanaynin baynu u raadinaynaa dawladnimo una weydiinayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu dhibaatada ka qaado say ku dhacaysan uu kale ma garanayo ilaa hadda ma ay jirto guddi heer qaran ah oo shaqo dhab ah ka qabtay wixii meesha ka dhacay guddi u soo gurmaday ummadda oo gargaaraya oo tirinaya meedadka oo aruurinaya
maxaa la yiraahdaa wixii rab in la aruriyo ummadana la wadaagaya xogaha dhabta ah qarxi ka horeeyay ee Zobe markii uu dhacay sida ay ummaddu isugu duubnayd iyo coordinationkii ay dawladdu soo bandhigtay hatta 10% oo kamid maanta laba soo bandhigay waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaarihi hore Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyihii hore ee duqa magaalada Mustafa Thabit oo runtii aan ku xasuusano coordinationkii iyo sidii ay shacabka ugu istaageen 2017 awoodda ay maanta dawladdu leedahay iyo dawladda midii ay lahayd isku mid bay ahay qarxi hore markuu dhacay ee Zobe 2017 dawladdu 8 bilood bay jirtay meelaha midana 5 bilood iyo meelaha bay jirtaa sida daraadeed laba dawlad cusub ayuu qarxiyada ay ku soo beegmeen laakiin dawladdii hore waxyaalihi ay ka aragnay waxa kamid ah coordinationka isku xirka guddi madax banaan oo la sameeyay isbitaaladii oo markii ay buuxda sameen dibadda loo qaaday saaxiibo inoo soo gurmaday sida Qatar iyo dalka liyaada Turkey oo soo diray dhaqaatiir iyo diyaarada waaweyn oo ummadda lagu qaaday madaxdii oo aan seexan oo maalinkii oo dhanba u taagneed in dhiigga ummad loo shubo maanta inta qofka dhiigga shubay lacag laga qaado way bal dhiig laga shubo iska dhaaf waayo ma jirto meel loo maro iyo system iyo coordination iyo dad ka shaqeynaya ma jiraan waxay soo wacayeen arkay dhalinyaro tiri dhiiggii baa la diiday in laga shubo lacag bixiyaay dhiig in laga shubo darteed kuwii meydka lacag baa laga qaadaya sawirka halkan kaga muuqda waa gudoomiyihii gobolka Banaadir oo kaliyaha iska haysta oo aad moodid inuu iska dhawrayo wax meesha ka soconaya midkaana waa Thabit oo dadka asagu markaasi uu qaadayo dul saaraya diyaaradii Turkida oo doonaya markaa inay dibadda la geeyo asagu habeenkii dhanba aan seexanin sawirka arkaysan waa Xasan Sheekh Maxamuud oo iscaraysiinayo oo xalayta markay 12kii ahayd meelaha soo istaagay goobtii ilaa hadda ana mar dambe dib u arag ninkaana waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhiig u shubay ummadii oo isbitaalka taagan isla markaasna qaba jaakadii festiga oo safety qaba ninka waa Xasan Cali Khayre asagana ka shaqeynaya wixii Zobe ka dhacay 2017 awrad wasaarihi kale aw madaxweynihii ma hayno lama qarin karayo marka difference-ga u dhaxeeya nimankii hore waxaan ku doonaynaa moral baa jiray awood ma jirin dhaqaale ma jirin amni ma jirin laakiin moral baa jiray intii yarada moralka hadna ummadii maanta way ilaa hatta ummadii Soomaaliyeed u istaagi jirtay qaraxyada oo dadka u istaagi jiray dhalinyaradii Muqdisho ee tabeebaha gududan madaxa ku xirtay 2017kii oo volunteer-ka u shaqeynayay aw maanta xagee jiraan ma garanayo kulay meel jiraan uma aan maleynayo Soomaaliya inay dhibaatada ay ka baxayso inta aynu support gareynayno oo aynu xeel ku abaalmarinayno kuwa ina xasuuqaya shalayta hotel Shamow ninkii qarxiib waa roob maanta wasiir buu inoo yahay wasiirka cadaaladda ninka maanta qarxi caldheeraad inuu bari xirseena cid ka hor istaagaysa ma jirto waayo waynu taageereynaa ummadda noocaayo faasiqiinta ah xaq uma laha markii inay amni helaan oo ay nabad helaan oo ay barwaaqo hel xaq uma laha ma helayaan xaq ma helayaan magaalada Muqdisho 1991 ilaa iyo maantayto dad masaakiin ah ayaa lagu boobaya lagu dhacaya lagu kufsanaya guriyoodii lagu haysta xoolahoodii oo dhan lagu dhacaya waa maxay marka wanaagga ka imaanaya 40 years magaalo dhiig ummadda lagu daadirayo see u dagaysa oo cid isweydiinaysa aysan jirin warmada dhiigooda hala daayo warmada xoolada faa laga qaado warmada yaan la boobin magaalo camiran baa one day ay mooyaan qabsata ilaa iyo maantadaana arrinta baa ka taagan cid isweydiinaysa ma jiro ninka guriga uu haysto masuulka maanta sheeganaya guriga uu haysto asagoo ma u laha kuma u dhalan canuga uu dhalana guri xaraan uu ku dhala amniga la heliya marka maxay tahay maahan inaynu been isku sheegna ma aha haddaan Soomaalida aan runta aan la isku sheegaynin waxa la isku sheegaa waa been wey Soomaalidu waa faasiqiin wey ma heli karayaan amni cadaalad ma xaq uma laha sida ay Soomaaliya maanta ay u kala musiibo badan tahay u kala dhibaato badan tahay Muqdisho waxaan aaminsanahay 70% dadka ummadda Soomaaliyeed ee 1991 ilaa maanta dhintay 70% oo ka mid ah xama bisay ku dhintay ma jira qof maanta awood u leeyahay war ummadda xoolaha hala sii oran karayo afar ganacsata ah oo gurida dheer xaraan ku dhisatay ummadii hortaagan iyo afar siyaasi oo ayaguna xilka ku yimaaday Soomaaliya iyo baba hortaagan ummadii marka ilaahay baan u weydiinayaa in ilaahay ka saaro kama quusan rajada laakiin Soomaaliya dhibaatada maanta haysata annagu been isku keenay dan runta aan isku sheeganina wax kale aan isku sheegnaa waa been way waayo waynu ducaynaa ducadana lama aqbalayo
waayo ducadu waxaa la aqbalaa qofku markuu ka toobad keeno wixii uu sameeyey laakiin haddii aad samaynayso wixii aad samaynayso ma garanay qaab loo aqbalayo ducadaada intaasaan kusoo koobayaa ilaahay ummadda dhibaatada ka qaado inta dib isaga soo laabanayno waxaan kaga tagay intaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh